halkani waa iskuulka Hargeysa Children Learning Center oo lagu hayo caruurta baahiyaha gaarka qaba. caruurtaasi imika waxaan haynaa in ku siman 324 qof. xaaladahoodu way kala duwan yihiin. iskuulkan waxa la aasaasay 2015 waxaana aasaastay Khadra iyadoo la kaashatay xaajiga Axmed Amran ayaa horta nagala jooga maanta. sidoo Cabdi Xakiim sheegay waxa aasaasnay 2015 waxaanan ahayn waalidiin isu yimi oo ciyaalkoodii meel geeyaan garan waayay. waxaan aasaasay jaamacadda Hargeysa qaybta faculty-ga nursing iyo midwifery-ga. busy baan ahaa NHPC qolada la yiraahdo baahda caafimaadka registration-kooda oo dhan baan ku jira gudida. waxaan ku jira iskuulada nursing iyo umulisooyinka wadanka oo dhan. intaas way taxaman qaadaya horumar khatara ayaa lagu jira dhinaca inankaygiina gurigu joogaayo meel aan geeyo baan la ahay oo iskuul u bartay eeg hadduu ahaan lahaa ciyaalka kale reer Soomaaliland guriyaha ku haystaan oo way qarinayaan. waxa la yiraahdaa hiblaayi gurigeedan tago walaal aanan ogeyn in leedahay baba jirta oo guriga joogtoon hadlin. marka waxaad arkaysaa in ciyaalka iyagiiba tabuu ah halkay ma aha disability-ga un tabuu ilmihiina wuxuu noqonayaa wax aan family-gi ka tirsaneen oo bulshadii ka tirsaneen oo iskuul u tago aan haysanin. waliba ciyaalka aan iskuulkan u furnay waxayaan kuwa waxbarashada awooda laakiin waxbarasho gaar ah u baahan in si gaar ah loo eego oo in caafimaadkoodii iyadoo lala socdo haddana waxbarashadoodu way isku xidhan yihiin labadu waliba ilmu intuu yar yahay laakiin markuu waxbarasho gaadho ilmihii ciyaalkii kala lagu darayaa malcaamadii uu la galayaa sanad laba kadib isagii guriga lagu soo reebaya. marka in adduunka kale waxa la yiraahdaa inclusion baa loo baahan yahay. waan ogahay in iskuulkii caadiga ah qayb uu ka qaato ilmaha disabled-ka ka wax dhigan kara waliba laakiin inaku Soomaaliland haday tahay ma u maleynayna heerka gaadhnay waayo bulshadiiba u baahan wacyigelin badan waalidkii baan garanaynin ilmahan buka. waxaan ku kordhinayaa in anigu siday Khadra sheegtay taariikhda weydin ka warrantay imkiya haatan maxaa aanu u baahanahay in laga caawiyo sidoo horta sheegtay Khadra awalan waxa way space meel weyn oo aynu waxaan doono ka dhisnaa horta waa in space helaan ugu horeynta maxay 20 qof halkan u joogan dee aqalkan yar aynu kareysanay weeyaan waa aragtaan aqalku intaas uu qaadi karaa $500 waana laga qaada funding-kana xagga laga keen waayo dadku in yar baa bixin kartaa in yar baa fee bixin kartaa inta badankoodu ma bixin karaa inta maaragtay imika xaafadaha lagu hayaa ka badan oo dawad garan karnaa laakiin inagu kulba taagteen ayaynu dhaqaaqaynaa imika intana halkan baynu ka bilownay laakiin wayna wax ku darno marka insha Allah wasaaradda waxaan ka codsanaynaa inay nala qabato awsha anagu hadaan waalidkiina iyo dadkii gudidana waxaan u taaganahay inaan ma garanaysa khayr ka shaqeysano hadii Allah yiraahdo marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin. ilmahaygana wuxuu ahaa ilmo aad u xanuunsanay oo daciif ah وسلسلة jiray hadii silsilada qofka in yar la waayo uu carri jiray tabeetana waxa yimiday inantan iyo inankan iyo ikraaso ma macna saddex qof baa yimiday waxay igu yiraahdeen iskuul baan geynaa ilmaha yar agoonka aan ka bixin fiida tabeetana waxaan ilmahan wax baranaydo oo finish bay uu baranayaa bay yiraahdeen hadii adigu loo gasho waalidnimo uu baranayaa bay yiraahdeen tabeetana waan ogolaaday taladii waan qaatay way geeyeen ilaahay ma hadii ma maanta waa fay oo caafimaad qaba ma baxsanayo ma tagayo oo hore ciid walaaqan jiray dharku bixin jiray maalin oo dhan wada idii jiray ciidan wareegaysan jiray imika laakiin ma sha Allah fay weeyaan waanu mahad celinayaa iskuulka iyo waxaan ku ciidii abaabushay iyo maamulka waan mahad celinayaa anigu waxaan ahay maamulaha iskuulkan kana tirsan wasaaradda waxbarashada ardayda meesha aanu ku hayna horta waa 320 arday oo qaba dhibaatooyin kala duwan anigu jaamacad Kenya ka soo baxay oo special needs ka ilaa heer waxaan ka gaaray degree dabadeetana waxaan nasiib u helay halkan inaan ka noqdo maamule waliba waxaan ka tirsanahay isla bahda wasaaradda waxbarashada ciyaalkani waa 9 nooc halkan waxaan ku haynaa 7 nooc 9kii waxaa naga maqan kii indhaha wax ka qabay iyo kii dhagaha la'aan intii kale waanu haynaa way joogaan halkan waxaanu sameynaa oo raacnaa jadwalka wasaaradda waxbarashada ku shaqeynaa horta ardayda iyaduna
waxay kala leeyihiin level inta autismka ee aanan markaa hadal lahayn iyaga galaas gooni ayaanu geynaa si iyaga bal speech therapy wax la yidhaahdo loogu sameeyo yacni bal hadalkii uun inay yacni soo tuuri karaan kuwa wax dhigan karaya ee learning disableka ee waxbarashadu ku adag tahay iyagana galaas baanu siinay kuwa iyaguna waxaa jira aanan gaadhin da'dii ka waaweyn da'da iskuullada kale oo dee yacni maanta aan iskuulladii dowladda oo kale tegi karin oo aan la qabsan karin kuwa iyagana galaas gooni ayaanu ka dhignaayo iyagana xaggaasaanu wax ugu dhignaa waxaanu haynaa waa 5 galaas ayaanu haynaa galaas hablaah iyo 4 inamaa arrintan waxaan xusuus dib ugu noqday dugsiyada noocan oo kale ayaa ardayda baahiyaad gaara waxbarashadoodii waxaas maynaan runtii dalkeenna kama jirin ninaan saaxiibna hooyan dhala oo maxamed cabaado la yidhaahdo ayaa la yidhi iskuulkii loolayaasha hargeysa laga furo iskuul baa lagugu daraya wuu u qaadan waayey waana halabuur ninkaas wuxuu la yaabay iskuul baa inta lagu kaxeeyey ninkaa dee carruurteenu guriguma joogi jireen ku xullaan jireen meelahan duleedkunba iska joogi jireen markay miyiga tahayna waxba looma diran jirin way iska dhibanaayeen waa kii markaa maansada dheer ka tiriye lahaa laye maxamed deeq alif iyo baa dhigo oo maxaa dhigtaa maaniga arkaba alifkiyo baadaba meeyo indhihii lagu eegi lahaa buuri ya ma faham yacni ilintii iskuulka furtoo faadmo la yidhaahdo oo waxaan ku odhi muxuu ahaa ay faadmo sulub caalin ayuu ku halqabsanayu laha faadmo ergoy ilaa maanta iyo tii abaydinimo indhoolaan ahaa alla igu ogyahay hooyaday ma arag adigana hortaa iskuul layma dhigin buuri egada faadmo ergoy ifka guul ku waar aakhire macbuud kaama oohiyo ilihii jannada aqalkaaga jeex yacni adiguna walaal waxaad la mid tahay faadimo ergadaasoo kalea tahay wax weyn baad soo kordhiso carruurteenna waxaan ku muxuu hawl weyn baad qabatay erey dhiirigelinayay bogaadin khadri erga weeye ilaahay ha kaa abaalmariyo dugsigani markiiba dee hawsha weyn uu qabtaa dareemaysaa runtii marka halkan wasiirkii iyo wasaaraddiina waa kuwan jooga maanta marka runtii dee waxaan ku bogaadaynaa inuu sugna insha allah inuu hawl laxaalla ka qayb weyn ka qaadan doono dadka waxa weeyaan ilaahay baa subxaana tacaala dee saa u qadaray inaguna waxa waajib naga saaran yahay haddaynu u dadaalno oo ardayga dee dhammaystiran ardayga baahida gaarka la qabo labadaba dee wasaaraddu waxaan filayaa inay dee ka mas-uul tahay marka u warwarimayno wasaaradda waalidiintana waxaan usoo jeedinaya inay dee u samraan ilaahay baa subxaana tacaala muxuu ahaaye ka dulqaadi doona in u samraan in u dhabar adeegaan muxuu ahaaye inay dee insha allah u dadaalaan waxa weeyaan dalkeenna waad ogtihiinoo dee way ku yar yihiin iminka iskuulaadka caynkan ahi way ku yar yihiin marka waxaan iyagana usoo jeedinayaa waalidkuna inay dadaalka halka ka sii wadaan wasiirkii wasaaraddii oo dhan baa maanta halkan idinku timi oo u timi inay carruurtiina soo eegaan iyo waalidiinta wixii ay la qaban karayaanna ay la qabtaan marka ugu horreysa waxaan aada ugu mahadnaqayaa wasaaradda tacliinta inay maanta indhahooda ku soo arkaan iskuulkan anigu muddo fara badan baan iskuulkan la socday ilaahay intiina waalidiinta ah ee carruurta gacanta ku haysana waxaan idinkula dardaarmayaa inay carruurtiina sidaas subaxdii ugu soo kallaysaan iskuulka ilaahay isbeddelkuna xagga ilaahay buu ka yimaadaa waananu u ducaynaynaa wixii lala qaban karayana waanu la qabanaynaa maanta dee meel madaxa la salaaxo oo ka weyn ma jirta baa layidhi wasaaraddii tacliinta oo dhan baa halkan joogta ugu mahadnaqayaa una bogaadinayaa maamulka dugsigan hadday tahay markaa khadre iyo qolooyinkii aasaasay iyo guddida dugsigan imika de iyaguna ka qayb qaata horumarkiisa amran iyo kamidkiin iyo horta waxa weeyaan dee ubadku dhammaantood waxay xaq u leeyihin wax la baro waana waajib dee dastuurka jamhuuriyadda somaliland na farayo ubadka baahiyaha gaarka alena runtii way kasii mudan yihiin markaa in iyagana dee si gaara loo xanaaneeyo saas sheegteenna culays fara badan baa runtii ka jira hadday tahay imkaaniyaadkii loo baahnaa oo macalimiintii iyo agabkii iyo dhulkiiba waxa weeyaan anagu wasaaradan dee waanu ka qayb qaadanaa iskuulkan socodsiintiisa
running coskiisa kharash yar bay ku dartaa dowladdu waan dareeminaa baahida laakiin iskuulku iyo kharashkaasi inaanay isu dhaweyna kala badiyin waxaa la idhahdaan waa ka qayb qaadasho ama kaalmo ayay dowladdu u taqaanaa waayo dugsiyaha dalka oo dhan oo ilaa 1500 dugsiya ay dowladdu hadday tahay dhisme hadday tahay macalin lacag laga bixinayo hadday tahay tababar waxaasoo dhan dee dhaqaalaha yare qaranku hayo ayaa runtii laga daboolaa halkan waxaa horta runtii ka bogaadinaya waalidiinta ubadkooda halkan keenay oo runtii iyaduna muujinaysa dee inay la yimaadeen iyaga laftoodu adkaysi taas waan ku bogaadinayaa saa maamulkii iyo dadkii macalimiinta halkan joogay noo sheegayna caruurtii barkii guriga joogeen ama cagaha ka xidhnaa ama qol ku xidhnaa ee qaarkood xataa caafimaadkooda ama dhabarku qalloocay ama socodkaba aqoona gurguurinaya marka xadhigga laga furaxta maanta waa tan leeyahay dee iskuulkiina wanka u galeen waa inagii soo aragnay iyagoo ciyaaraya oo si wanaagsan magaraysaa bulshadii u dhexgeli karaya kuwii aan la sheekaysanayna salaamayey iyo kuwii nala hadlayeyba maskaxdooda maasha allah walaa aad bay runtii u wanaagsan tahay waxaasna horta waa tacabaa geliseen khadraa iyo idinkii cabdixakiin iyo waan idinka mahadnaqaynaa keliya waxaan jeclahay waalidka inaan ku dardaarnay inta halka joogtay inta kale daawan doontaba waxa weeyaan mas-uuliyad weyn baa ubadkaaga kaa saaran wax barto haddaad guriga ku haysa ilmihi waxaa laga yaabaa in culays kalo fara badan oo xagga niyadda iyo xagga caafimaadka inay ku dhacaan marka ubadka inaan dugsiyada noocana keenno inaan fursadu siino ilmi yaraa in wax barto in inaguna aynu ka qayb qaadano iskuulka noocan oo kale si u hirgeli laha horta marka ugu horeysa khatra cali cigaal iyo amran xiis iyo kiin iyo dadkii kale aasaasay dugsigan oo wax weyn Soomaaliland u qabtay marka waxay ku tusaa taasi wuxuu qof bilaabo in uu soconayay dadka kale marka daba la qabanaya waayo ilaahay baa qoray horta in la asaaso oo qadar ilaahay bay laakiin hadana iyagu asaasin maanta halkan ma inaan isugu iman karneen marka qofku markuu wax positive wax wanaag sameeyo waxa laga yaabaa 1000 sano kadib inagoo inteynani waayo hore de 1000 sano aynu mootanay in haddana qofkaasi wixii uu sameeyey wanaagiisu socdo jaamacad ay gaadho hadaad caruurta aynu wuxuu qabanay weynana de inagana way caruurteeni oo dayacni weeye de dibna nabi maxamed calayhi salaam ila waa khayru khalqulaahi buu haddana ilaahay uu ku caraatay markuu kasii jeedsaday ninkii daalayo cabasa wata walaa jaawala acmaal ayuu ilaahay waxaa muhiima oo kale markaa anaga doonaa inaan fursadan uga faa'iideysto waalidku markay si ay yeelaan garan waayaan imika de waaba tan iskuulaynu ka aasanay Soomaaliland way ballaaran tahay waddankeena intaa leeg de Hargeysa qura maaha Soomaaliland oo dhan baa u baahan markaan qiyaasto imika ilmo yaroo miyi jooga oo aan wax u dhowi jirin xataa dhakhtar u dhoweyn oo baahidan oo kala qaba de wuu kasii baahi badan yahay kuwa imika Hargeysa jooga ama halkii la joogo marka Soomaaliland oo dhan baynu horta doonaynaa in hawshaas sidaynu u gaarsiin lahayn inuu gaarsiino marka waalidka caruur sidaas haysta ee Soomaaliland halkan aniga fursadan uga faa'iideysanaya wixii aan la qaban kareynana waanu la qabanaynaa waanu dadaalinaa caruurta in iskuulada la keeno guriga lagu xidhinay iskuulada laga soo saaro wasaaradda waxbarashada aan mas'uulka ama nagu cislaato ama nagu fudaato mas'uuliyadiisana qofku wixii ay taagtaadu ay ku gaarsiin wada halkiisa laakiin anaga ka mas'uula waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa ku jira codsigii dhul laga dhiso la keeno dhulka horta waan ballan qaadana inta loo baahdo saacada laga bilaabo wasaaradda waxbarashadu dhul badan bay haysaa waanu diiwaangelinaa in kastoo dhulkii iskuulada imika weerar lagu hayo oo qaar badan lagu haysto haddana dhul badan baanu haynaa weliba waxaanu idin geynaynaa dhul soo kala doordoorto magaalada geesaheeda kala duwana dhismahaana waynu ka qayb qaadananaa halkan oo qura maahe de Soomaaliland oo dhan baynu mas'uul ka nahay marka meel walba waanu soo ina ballanta ilaahay baana indala qaban doona wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh